ma joojin kartid hadallada dadka kale, laakiin ha u ogolaan inay ku joojiyaan adiga. Jooji fikirka ah in duruuftan adag iyo dhibkani weligaa aad ku jiraysid. Sida xilliyada sanadku isu beddelaan ayay xaaladuhu isu beddeli doonaan. Noloshu waa wareeg, mana jirto wax sidooda iska ahaanaya weligood. Xitaa naftaadu waxay leedahay taariikh ay dhacayso. Wax wanaagsan ayaa noqon kara wax xun haddii aad ka eegto dhinaca mugdiga ah. Sidoo kale waxa xun ayaa noqon kara wax wanaagsan haddii laga eego dhanka iftiinka ah. Buurtan aad xambaarsan tahay waxa kaliya ee laga rabeeyaa ahayd inaad dhinac ka fuusho, dhanka kalena aad kaga soo baxdo. Laakiin adiga ayaa dhabarka iyo garbaha ku qaatay oo culays isaga dhigay. Kuwa rabaan inay gurtaan faa'iidada waddankooda waa inay dulqaad u yeeshaan daalka iyo xanuunka ay kala kulmayaan taageeridda waddankooda. Awood qaran laguma cabiro baaxadda ciidankeeda, balse waxaa lagu gartaa sida ay ula dhaqanto dadkeeda kuwa ugu liita. Dadka wanaagsan waa sida shumici oo kale, oo waxay u gubaan u dhibaan naftooda si ay iftiin u helaan dadka kale. Jiilka maanta way neceb yihiin inay hurdada ka kacaan subaxnimada hore. Caajis badan ayaa haya casarkii, galabtii way daalan yihiin, fiidkii way caraysan yihiin markii ay seexanayaan habeenkii.